dhexe ee xamar oo 11kii bishan kooxaha nabadiidka ay qarxiyeen albaabka laga soo galo ayaa waxaa maanta kormeer shaqo ku tagay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre si ciidanka asluubta uga tacsiiyay askartii uga geeriyootay qaraxaasi isla markaana uu qiimeeyo xaaladda maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee xamar. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa kormeeray qaybo ka mid ah xarunta xabsiga oo ay ku jirto warshada ciidanka asluubta halka warbixino guud ka dhageystay saraakiisha ciidanka asluubta iyagoo u soo bandhigay caqabadaha haysta ciidanka asluubta ee ay doonayaan inay wax kala qabato dawladdu. taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta ahna kusimaha taliyaha ciidanka ayaa uga mahad celiyay ra'iisul wasaaraha booqashadiisa la xiriirta tacsiyeynta ciidanka asluubta. ilmaamahaaga iyo tusaalahaaga qiimaha badan maxaan ku raahdaa dalka guud ahaan iyo dadkaagu kaaga barteen kaana sugayaan ayaanu diyaar u nahay qalbi furan iyo dhiga furan iyo damiir iyo dadnimo wadaninimo in aan ku dhigaysano. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo la hadlayay saraakiisha ciidanka asluubta ayaa u tacsiiyay ciidanka asluubta isagoo haliyay astaan u ah ciidanka qalabka sida ku tilmaamay askarigii isku dhigay qaraxaasi ka dhacay iridda hore ee xabsiga dhexe ee xamar. waxaan halkan ugu tacsiyeynayaa ilaahay u naxariistee askarigii isu dhigay qaraxaas oo naftiisa u huray qarannimada ummadda Soomaaliyeed. askarigaas ilaahay ha u naxariistee wuxuu naftiisa u huray in dad idinka mid ah oo maalintaas masaajidka ku jira ay noolaadaan. askarigaas wuxuu naftiisa u huray inuu tusiyo cadowga inay weli nool yihiin askar Soomaaliyeed oo diyaar ah inay dhiigooda bixiyaan. askarigaas wuxuu naftiisa u huray inuu naxasuusiyo macnaha ay leedahay qarannimada ummadda Soomaaliyeed. askarigaas wuxuu dhiiggiisa u huray inuu tusaale nooga tago annaga. tusaalahaasina wuxuu ahaa in idinku aad difaacdaan dalkiina. mudane Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha dalka ayaa xusay ciidanka asluubta yihiin astaanta cadaaladda isagoo intaa ku daray in aan la aqbali karin in xabsiga dhexe dib laga soo abaabulo balse ay tahay in lagu dhaqan celiyo kuwa dembiyada gala si ay uga mid noqdaan bulshada marka ay dhammaystaan xukunkooda. inaad u dhaqantaan inaad tihiin astaanta cadaaladda. sidaas daraaddeed xabsigan waxa uu u dhisan yahay aan maanta isugu nimid in dadka lagu dhaqan celiyo, in bulshada dhibka looga ilaaliyo, laakiin uma dhisna in dhib laga soo abaabulo. taliyaasha ciidamada halkan jooga iyo madaxda xabsiga waxaan u sheegayaa mas-uul iyagu inay ka yihiin in xabsigan dhexdiisa aanay dhibaato ka iman.